عاشقيدا وعني قاكدا لو دقي تمحيدا إركيو سيدا في أرحبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن مركلي فيديو عصب جلال قاعد نقل السعودان وحباب فاميلي نقول مسين سو دوادا مالي وناكسن هبين وناكسن صباح وناكسن دور وناكسن عصر وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتي عصب سو دوادا أصحابتي رجوك سوكل سو دوادا دمتي بسو دوادا دمتي نادود جعلها إن شاء الله جنالك وحباب أنا نقول مسين فضلا جنالك تاكو عصب سبسكرايب نوصل لايك شير كم صحبة رودك هذا ما سنتهاي سبسكرايب تقول سيرين ولايكرين وشركرين دمتي ما سنتين دمتي نادود جعلها markasta iyo meel kasta u ducay qof kasta muslim oo naga xanuunsanay inuu ilaahay caafimaad taam noo siiyo insha Allah waxaana wada qiso hala reer qiso in badan waxa waay qisooyinka America waxa waa qisooyinka ugu mucjisada badan ma aqaano soo markaa insha Allah waxa waay kaaliska arag soo waxaan aadeynaa America Kansas hello qisaan runtii waa qiso xanuun badan yaab badan waxyaabo su'aalo far badan iska weydiin doontiin marka insha Allah noo bilaabo qisada gabadha ee ku dhacday waxa la dhahaa Bernita oo 17 jir ah waxay ahayd gabar ardayda dhiganaysa iskuul waxay la nooleed familigeeda hooyaded waxa la dhahaa Sarah 17 jir ah aabaheedna Scott Walker soo marka waxay ahayd family buuxa oo guri wada degan waxaa jira wiil ayada ka yar oo walaal u ahaa iyo ayada bisi hooyaded iyo aabaheed dhaleen labada cunug iyo hooyadii aabaheed xukooda noolaayeen hal guri gabadha Bernita waxay ahayd qof yacni fudud oo markasta jecel socodka iyo dalxiiska aabaheedna wuxuu ahaa dadka adag Soomaha waalidiinta qaar kale adag waalidiin waxa jira halkii marsaasada ku fiiriyeen bis qalaas cabsi dareemaysid iyo waalidiin iska happy ah oo markas awlaadooda la sheekaysta soo markii sida la sheegay Scott Walker oo ah gabadha aabaheed wuxuu ahaa qof aad u kulul oo aad looga cabsado markastan ayadana waxay dadka jecel socodka iyo dalxiiska inay tagtay meelaha kalaabyada oo yaani muusikada waxaas iyo ka jiraan soo marka asiga ma uusan ogoleen in gabadhiisa ay baxdo waxa kaliya markasta ku diriri jireen markasta ku murmi jireen waxay sida la sheegay bixitaanka soo marka meeshaas ka bilaabanaysa qisada oo gabadhan iyo aabaheed iyo hooyadeedba saddexdooda qisada waxay ka bilaabanaysaa meeshan Bernita markii ugu dambeysay oo la arkay waxay ahayd yaani iskuul aaday 2020 bishii shanaad May had markii ugu dambeysay oo iskuul ay dhigatay iskuulkeeda ka soo dhex muuqata sida ay sheegeen macallimiinta oo college-ka dhiganeysay maalintaas waxay sameeyeen waxyaabo far badan oo hore loogu arki jirin oo qariib noqday oo dadka ilaa hadda maxay tahay markasta isweydiinayaan waxyaabaas ay sameeyeen sida la sheegay ardayda iskuulka maalintaas waxay u sameeyeen xaflad yar maxay tahay iyada qaayid geysay ay ka dhiibtay cunadii maalintaas sida ay sheegtay waxa ay tiri waxaan rabaa in aan haysto sanadkan yaani waqtigan u noqdo waqtigii ugu dambeeyay soo marka maadaama imtixaan la galay oo bishan aan imtixaan galnay sanadkii ugu dambeeyay uu noqonayo macsalaameyn ahaan waxay ugu sameysay xaflad sida la sheegay arday fara badan oo waxa jireen isku galaas ahaayeen aad best friend u ahaayeen qof kastana rajul leh marka ay iskuulka la dhiganayo isku rajo iyo isku hami lama ahan qolo waxay rabtaa inay shaqaysato qolo waxay rabtaa inay waxbarashada sii wadato qolo waxay barbaan inay isdhiibaan ay guursadaan oo yaani isdhiibis ma ahan inay si kale laakiin inay awlaad dhalaan ay reer yeeshaan family buuxa ay noqdaan ay rabaan soo marka gabadha waxay sheegtay in ay rabto inay shaqaysato waliba ay hesho shaqo fiican oo ayada nafsadeeda iyo nafsada waalidkeed u fiican sida ay sheegtay saasayna maalintaas ku soo dhamaatay laakiin maalinta ugu dambeysay oo college-ka laga arkay maalintaas ahayd bishii May 2020 ahayd waxa dhacday guriga markii ay ku soo laabtay walaalkeed ba sheegay in maalintaas aabaheed murmeen waliba muran aad adag ayadoo tiri waxaan rabaa inaan shaqaysto waliba aan ka helay yaani xaafadan aan deganahay xaafada Soomaha ayadoo yaani gobolka magaca kor ka wad yahay magaalada haddana waxaa jira deegaan ama xaafad waxay tir marka meesha aabaheed degay meel ka fog waxay tir waxaan ka helay shaqo waliba wiilan la isna qaano aan la shaqeynayaa oo
meel lagu iibiyo biirka ama khamriga iyo waxaas leh soo marka waxaan rabaa inaan wiilashas la shaqeeyo oo baarkaas aan kala shaqeeyo waana shaqo fiican maadaama anigana aan noqday yani 18 jirkeyga ee ka dhimata inaan 18 sano galo oo bisha July ee ii tahay 18 sano saas daraadeed marka waxaan rabaa inaan qof shaqaysto noqdo goonina idinka dego saas inaan idinka aan ku kala dhamaano sida waalidiinteedaba ay xaqiijiyeen marka ugu dambeysna hadalkaas tiro waxa dhacday in gabadhii sida la sheegay ay baxday si waalidiinteeda sheegayaan way baxday dib dambe looma arkin bishii waxay baxday May dabiiqadeedii baxday gabadhi waxaa la tabay Agosto yani Agosto bilowgii bish Agosto la tabay marka ay maqan tahay 2 bil ku dhawaad June iyo July marka ay maqan tahay waxaa la tabay Agosto hooyadeeda waxay la soo hadashay booliska hooyadeed Sara waxay tiri waxay ga maqan gabadhayda Bernita oo 17 jir ah waxaan ugu dambeysay bishii May dhamaadkeeda ugu dambeysay soo marka ilaa abtuna maanan arkin taleefankeedana waxa waay uu dansan yahay marka waxaan u baahanahay in gabadhaydii la ii sheego meel ay joogto booliska la raadiyo isla markiiba oo ka yiraahdeen booliska baaritaan la bilaabay booliska gurigooda yimaadeen waxaa la sameeyay marka hooyada taleefankeeda la baaray waxaa la arkay message oo hooyada loo soo diray taleefanka gabadha Bernita looga soo diray ee leedahay hooyo anigu waxaan joogaa meel safe ah soo marka qofna uma baahni waa inaad nabadgelisaan waxyaabo la mid ah ku soo qortay marka isla markii booliska waxay tiri fariintan hadda ii soo dhacday waatana gabadhayda wayna nabad qabtay si sheegaysa laakiin taleefankeedu way dansan yahay message-kan iiga soo dirtay isla markiiba booliska ma aysan sii sameyn wax baaritaano dheer intaas ka sii badan ma aysan sameyn way iska bixin hal week kadib haddana waxaa dhacday in booliska uu soo wacay wiilka ay dhahaysa waa inaan la shaqeeyaan raba inuu booliska soo waco uu yiri gabadhaas waan ballansaneen markastana taleefankeeda message liiga soo diraa waa ku imaanaa mashquulaan ahay saan ahay taleefankii markaan wacan ugu dansan yahay soo markaan waxaan u baahanahay in booliska in gabadhaas uu raadiyo ani gabar ilama joogto inaan wada shaqeynaa rabna ilama joogto soo marka waa laazim in booliska uu gabadhaas raadiyo weliba uu gabadhaas xaqiijiyo inay ku jirto meel safe ah weliba wuxuu yiri aabaheed waxa waaye aabo kulul dhowr mareen iiga sheegtay dhibaatada iyo xanuunka uu ku haayo hooyadeedna waa sidoo kale ayadan aad bay u kulushahay inkastoo ay aabaha ka baqato marka waxaan u baahanay gabadhaas in la safe gareeyo oo la raadiyo markaas booliska talada ku cadaatay markaas waxaa la bilaabay gabadha in la raadiyo waxaa dhacday in habeenkii 7 in reerka gurigooda boolis ay yimaadaan lagu soo garaaco la bilaabay in hooyadii iyo aabihii gooni loo wareysto gurigii booliska raadiyo wiilkii yaraa la weydiiyo wiilkii yara hadal uu kasoo bixi waay because waxyaabo fara badan oo waxaa jira secret ah wiilkan ogyahay qayb kamid ah qaybna uusan ogeyn inkastoo uu yaryahay oo wax fara badan oo aad u weyn ay ka weyn tahay haddana waxaa jira waxyaabo qaar uu maqlay ama ishiisu ku arkay laakiin waalidka aysan ogeyn wiilkaas inuu yani noqon doono qofka marqaatiga koowaad ku noqon doono reerka isla markiiba waxa dhacday wiilkii la wareystay wuxuu hooyaday aabahay dhowr maalin ka hor bay baxeen aniga markaas iskuulaan jiray marka meel koraan ka arkay tartiib waan daba kacay waxayna tageen guriga meel xooga u jirto weliba ayagoo wata majarafad ama badiil isla markiiba boolis waxay yiraahdeen meeshii nagay hooyadii aabihii waa la waday stationka la geeyay wiilkii la waday wiilkii meesha markuu u geeyay waxaa loogu tagay waxay tahay wax baaray markii la waday laazim eeyaha waxay yani laga dareemay in meeshan uu ka dhac fal dambiyad dil ah soo marka meeshii waa la qoday markii la qoday waxaa loogu tagay gabadhii Bernita ahayd oo meesha ku duugan weliba meeshii ilmihi yaraa uu sheegay soo marka ma oga ilmaha yar yani qofka dila gabadhan iyo waalidku waxay meesha ka qabanayeen laakiin waxa uu sheegay in majarfad ay wateen waqtigaasna ay meesha joogeen isla markii waalidka lagu soo laabto waxaa la yiri haye sheega sida wax u jiraan gabadhiin meesha ay geyseen weliba cadeemo far badan la idinku haya gabadha inaad disheen wax la mid ah hooyadii hadashay weliba waxay tiri waxaan u baahnaa in la safe gareeyo because waan ka baqanayaa Scott inuu dilo gabadheed meesha uu mariyo uu marsiyo gabadhayda asigaa dilay weliba wuxuu u dilay waxay tahay in uu ku sameeyo yani waxyaabo qaldan saas daraadeed marka uu diiday in gabadhiis ay sheegto
tan kale in gabadha ay soo hesho shaqo iyo waxyaabo kale ayna rabto gurigan iyo reerkan inay ka dhex baxdo ee meel gooni degto saas daraadeed marka in waxyaabo qaladaad fara badan oo hore ugu sameeyay in ay sheegto ka baqdo markay banaanka degto saasaan dadajisay in gabadha uu dilo anigana ma ka hadli karo because waxaan ka baqanayay in anigana uu dilo dhowr marna uu igu hanjab inuu dil doono taleefon wax message ka soo diri jiran oo asiga waxa wiilkaas shaqada ay ka dalbatay ee la shaqeey rabtana message ku diri jiray waa asiga qofka igu amr inaa idin soo wacin maran habaabiin waa asiga soo marka in aniga dambi ku malihin waxyaabo cadeen ah oo muujinaya dilka markuu dhacayo oo aan kor ka duubayna wuxuu yaaleen guriga meel hebel isla markii waa la baxay guriga la tagay meesha ay cadeynta ku tilmaantay kaamirada la tagay waa la soo bixiyay waxaa la arkay wax kasta oo iskood sameynayo oo gabadhiisa markuu dilaayo isla markiiba maxkamada xukunta waxaa lagu xukumay xabsi daa'im hooyadan maadaama ay qarisay dambigii ay ogeed ay qarisay xitaa wandhe xitaa aysan isku day inay booliska caawiso inta baaritaanka u socday ayadana waxaa lagu xukumay 19 sano oo xabsi ah maadaama ayadan ay wax ka ogeed falka laakiin ay ahayd qof afduuban camal meesh marka waxaa ku sarnaatay qisadii Bernita xilliyada qaar waalidiinta markay adag yihiin waxaa waa laga cabsadaa inkastoo waalidiinta aysan fiicnaad adeega qaarkiis oo xogaan ilmahoodu dabcaan ay fiican tahay markastana kale ilaah noo xafido awlaad qof kasta awlaad haysta ilaah oo xafido intaanan haysana awlaad baaqi insha Allah ilaah siiyo dhamaantood ma santiin dhamaantood wada jecelahan insha Allah channel subscribe ka iloobin like to share to commentiga in ilaagtina waxay ita dhiirigelin dhamaantood ma santiin insha Allah qof kasta oo su'aal qaba ha igu reebo Instagram ama Facebook insha Allah wixii fikirna commentiga igu reebo dhamaantood ma santiin dhamaantood wada jecelahan peace and love